aabba ciyaarsiinaya gabadhiisa, aabbo farxad la qaadanaya gabadhiisa. Ninkii wuxuu gudagalay inuu ku mashquulo aabbahaasi gabadhiisa, isaguna uu farxadda la qaato isla markaana uu hilmaamo tareenkii. sikadiis tareenka albaabadiisa waa la xiray, wuuna dhaqaajiyey. Ninkii waa uu xanaaqay, waa uu niyad jabay, maxaa yeelay wuxuu ku qasban yahay in tareenku uu sugo 11 bilood si uu magaalada ugu safro. wuxuuna ka shalayay in tareenku uu fuuli waayo markii uu imaanayay. قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حوت معناها، وكذا بهادي نبينا قد سطرت قصص روائعها يشع. mid ka mid meelaha aad ugu fog magaalada ayaa waxa ku taalay tuulo. heer waxay kaartay tuuladaasi qofkii raba inuu magaalada aado uu sugayo tareenka 11 bilood. haddaba maalin maalmaha ka mid ayaa nin wuxuu damcay in tareenkaasi ku safro kuna aado magaalada. ninkii wuxuu aaday basteejada tareenka, isagoo sugayo tareenka ayaa meel fog wuxuu ka maqlay codka tareenka. kadib niyadiisa ayuu wuxuu iska dhahay hadhow markuu imaado albaabada la furay aad geli doontaa. isla markii tareenkii uu imaaday, albaabadiina waa la furay. sidaan ogsoonahay tareenka wuxuu taagnaadaa muddo ku dhow 30 daqiiqo si rakaabku u fuulaan, kadib albaabka loo xiro halkaana uu ka dhaqaajiyo. ninkii wuxuu isdhahay maadaama uu kuleel jiro 30 daqiiqo tareenka taagnaanayo, 30 maalmood aad waddada ku jiri doonto, waxba u degdegin tareenka, waxaad raacin doontaa 5 daqiiqo ugu dambeysa. markii la gaaray 5 daqiiqo ugu dambeysay, isaguna isku diyaarinayo in tareenka uu fuulo, ayuu basteejada dhinaceeda wuxuu ka arkay aabba ciyaarsiinaya gabadhiisa, aabbo farxad la qaadanaya gabadhiisa. ninkii wuxuu gudagalay inuu ku mashquulo aabbahaasi gabadhiisa, isaguna uu farxadda la qaato isla markaana uu hilmaamo tareenkii. sikadiis tareenka albaabadiisa waa la xiray, wuuna dhaqaajiyey. ninkii waa uu xanaaqay, waa uu niyad jabay, maxaa yeelay wuxuu ku qasban yahay in tareenku uu sugo 11 bilood si uu magaalada ugu safro. wuxuuna ka shalayay in tareenku uu fuuli waayo markii uu imaanayay. walaal, ma ogtahay waxaan ka hadlayo? waxaan ka hadlayaa waa bisha barakeysan ee Ramadaan. ninka waa adiga, tareenka waa bisha Ramadaan. aabbahay gabadhiisa waa musalsaladii waxyaabaha kale la soo galisho bisha Ramadaan. walaal, su'aal aan ku weydiiyo, maxay tahay hadafkan u soomannahay? ma inaan gaajo dareenna? waa maya. hadafka asaasiga waa at-taqwa, waa inaad samaysaa Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu ku faray, kana reebtoodid wuxuu ka reebay. haddaba axbaabi, aan ka faa'iidaysano bisha barakeysan ee Ramadaan. ma hubno inaad gaari doono kan xiga. alle hana waafajiyo bishaan barakeysan qayrkeeda. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. haddii aad daawatay muuqaalka, waxaan kaa codsanaynaa inaad la gareyso, sidoo kale la wadaagto asxaabtaada, si aan u helno asxaab sida adigoo kale. fikirkaaga qaybta hoose faallada nagu soo gudbi. Ramadaanul Kariim.